السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابته وادن سلامة مالك استوجوتين وحادي رجينا يا عافماد إنا قبتين رمضان وناكسن ما أنت حماوضة عبتان ير وفضود أقفل بوكيه لدونه إن شاء الله عبتان عاد وفي عنواي على الفائديستو halkaa waxaad ku ritid waxaa waaye hal xabo oo tufaax ah wax yar oo kooban oo faa'iido badan waaye insha Allah xabo tufaax ah xabad cambe ah wax yar oo easy waa qof kasta subsan karo cabitaankan waxyaabaha faa'iidadiisa waxaa waaye aad u badan tahay soo easy u yahay ee soo faa'iido badan mal waxaan ku daray baraf waxaan ku darsaday 2 qaado sonkor iyo caano waxaan kaloo ku darayaa xulbad shiidan waaye aniga xulbadaas iyadoo miraha soo gatay aniga shiitay inta iska dhaqay xulbada iyadoo shiidan ha soo gadanina hadii aad isticmaalaysiin cuno iska dhaqa marka qalajis kadib aad gurigaada ku shiido xulbada inta dhehaysa caafimaad cudur raasatay dib waaye insha Allah waxa idin inaad ka heli doontiin cabitaankan waxaa la dhahaa dib u heshiisiin qoys waxaa waaye family-ga cabitaankan cabaan ma isku dhacayaan insha Allah caawadan ugu qoslaya cabitaanka hadaa adinka marka mishinta ku shiidatid ku xiranta aniga mishinteeda ma u baahno cabitaanka dhan cream ay ka dhigaysaa sida ice cream-ki barafan soo darsaday adiga laakiin iska shaqshaq maadaama cambaha uu leeyahay wax yar oo miro adaada mishin fiican haysanin insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin cabitaanka saas ku soo bax cabitaan yar oo qabow saacad kasta cabta waqti uu ku xiran yahay male bacda afur markii oo la afuro kala to aad u fiican inta shaax iyo waxaas la cabi lahaa kan meel boos walba ku galaya smoothie ku galaya booski oo wuxuu ku galaya maraqa waxyaabo badan oo ka saacideynaya waana wax yar iska caafimaada caanihii cambihii tufaaxii xulbada oo maxaa la jira antibacteria infectionka dhan dilaysa jirka neefsashada kale ku dhibeyso qofka uu neefsan karo si fudud waxa kale ay leedahay dhabarka uu ku xanuunayo hadaa infection qabtid dhiiga cas ay sifaynayso gooryaanka caloosha oo ka dilayso gabdhaha uurka leh kale markay 9 bilood gaaraan aad ugu fiican tahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin video-gan qof kasta daawado waxaan ka codsanaynaa inuu noo sii share gareeyo noo faafiyo subscribe kana noo saartiin